kusoo dhawo muuqaalkan oo kaga hadli doono wadanka ugu dadka badan Afrika. Wadanka ugu dadka badan Afrika waa Nigeria. Magaca rasmiga waa Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria. Waa wadan ku yaala galbeedka Afrika. Waa dalka ugu dadka badan Afrika. Badi ahaan waxa uu ku fadhiyaa 963,769 kilomitir square. Waxaana ku nool dad kor u dhaafaya 211 milyan. Nigeria waxay xad leedahay wadanada kala ah Niger, Chad, Cameroon iyo Benin. Nigeria waa federaal sidan hore u sheegnay oo ka kooban 36 gobol iyo caasimadda Abuja. Waxaana ku nool caasimadda Abuja oo kaliya 776,098 qof. Magaalada ugu weyn waa Lagos, waana magaalada labaad ee ugu dadka badan Afrika. Nigeria waa wadanka ugu wax soo saarka badan marka laga eego dawladaha GDP ee loo yaqaan. Waana wadanka 26 ee dunida. Boqolkiiba 30 in lagu qiyaaso dadka Nigeria waxa ay ka shaqeeyaan beeraha. Dhaqaalaha ugu badan waxa uu ka soo galaa wadankan 3 meelood oo kala ah beeraha, petroleumka iyo cashuurta dalxiiska. Awoodda ugu badan waxa iska leh madaxweynaha madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari. Madaxweynaha Muhammadu Buhari waxa uu xukunka hayay tan iyo 2015 waana madaxweyne muslim ah. Waana aabaha dhalay 10 ciyaal ah. Luqadaha wadankan lagaga hadlaa waa 520, balse luqadda wax lagu bartay uu ku qorayaa curriculumka waa luqadda Ingiriiska. Diin ahaan 221 milyan Nigeria in ka badan kala badh waa muslim oo u dhiganta 53%, halka dadka Kiristaanka yihiin 45%. Inta soo hadhayna ay tahay diimaha kale. Muuqaalkan oo aan kaga hadlaynay taariikh kooban oo ku saabsan Nigeria halka ay soo leeyahay basta maalmaha soo socda waxaan soo qaadan doonaa wadanka labaad ee ugu dadka badan Afrika oo noqon doona wadanka Ethiopia. daawada kusoo dhawo barnaamijkeeni labaad oo kaga hadlano wadanka labaad ee ugu dadka badan Afrika. Sidaan muuqaalkii hore kusoo sheegnay wadankaas waxa uu noqon doonaa Ethiopia. Magaca rasmiga ee Ethiopia waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia. Waa dal aan bad lahayn oo ku yaala geeska Afrika. Waxay xuduud u leeyahay wadankani wadannada gaaraya 5 oo ay ka mid tahay Eritrea, Djibouti, Somaliland, Soomaaliya, Kenya iyo labada Suudaan. Ethiopia waxay leedahay bad guud ahaan gaaraya 1,100,000 kilomitir square. Waxa ku nool dad gaaraya tiradoodu 117 milyan. waana dalka 12aad ee ugu dadka badan adduunka, halka uu ka yahay dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika. Caasimada dalka iyo magaalada ugu weyn waa Addis Ababa. Luqadda rasmiga ee Ethiopia ee ay dawladdu ku shaqeysaa waa Amharic, kaasi oo la sharciyay 2007, balse waxaa jira in lagu qiyaaso 54 ilaa 86 luqadood. Ethiopia waa dhul ku caan ah kala duwanaanshaha dadka, afafka, dhaqamada, balse waxay ka midaysan yihiin ilaalinta nabadda. dhaqamada lagu arko qoomiyadaha qaar ee aadka dunidu uga yaabtay waxaa ka mid ah in dibnaha ama bushimaha oo la dalooliyo kadibna la geliyo bir sida goobada u samaysan oo xajmi ahaan weyn, taasi oo sabab noqotay in ay weynaato faruurtu. Haddaba gabadha sidan oo kala samaysa waxaa looga yaqaan oo looga tixgeliyay inay tahay quruxley. Waxaan aad uga daba dhaca inamada filkeeda ee guurdoonka ah. Waxaa kale oo ka mid ah dhaqamada aadka loola yaabo cunitaanka hilibka. cunitaanka hilibka marka aan leeyahay waxaan u jeedaa cunitaanka hilibka isagoo qaydin oo aan loo dhawin wax daba. Waana dhaqan uu ku qasbay halgamaagii Soomaaliga ahaa Axmed Gurey ee deegaan ahaan deganaa magaalada Saylac kadib markii diiday in meesha dab laga shidaba agta la mariyo, taasi oo ku sababtay in dadka Ethiopiaanki cabsi ay ka qabaan ay joojiyaan shidashada dabka. In Ethiopia, we eat teresiga. Do you know why? No. Do you know why? I have no idea. There's a legend that in Ethiopia, teresiga is normal. Because back in the day, Ethiopians were great warriors. And one of the things that they discovered about being great warriors in strategy was if they cooked their food with fire, the enemy would find them and would kill them. Ethiopia dhaqaale ahaan waxa ay ku tiirsan tahay soo saaritaanka enerjida ama hydropower, kaasi oo dab lagaga dhalinayo biyaha. Kaalinta labaad waxa ku jira agriculture-ka ama qaybta beeraha. Wax soo saarka ugu badan ee dhoofisa waxa ka mid ah qaadka iyo bunka. Kaalinta saddexaad waxa ku jira gaadiidka, taasi oo ah shirkadda ugu weyn ee caanka Ethiopia ay leedahay loo yaqaan Ethiopian Airlines. Ethiopia qofka ugu awoodda badan waa ra'iisul wasaaraha
madaxweynuhu waxa uu leeyahay mansab ahaan masam sharafeed oo ma lahayn waxa awooda ra'iisul wasaaraha haddan joogana waa Abiy Ahmed oo la doortay labadii bishii Abriil ee sanadkii 2018 ka bacdi kacdoono fara badan oo ka dhacay waddanka Itoobiya balse waxa dib loo doortay sanadkan markiisii labaad Itoobiya waxay ka kooban tahay 10 state ama maamul goboleedaas waxaa ka mid ah Tigreega oo ahay maamul goboleedka inta badan ay dawladdu dagaalamaan kadib isbedelkii ka dhacay waddanka laba Anfarta Axmaarada Oromada Soomaalida Beesha shucuubta koonfureed gobolka Gambeelada Xiriiri iyo laba maamul goboleed iyagu isku maamula oo aan weli kala bixin haddaba daawada maanta barnaamijkeena halkaas ayuu ku eegaya balse maalmaha soo socda waxaan ku soo qaadan doonaa waddanka saddexaad ee ugu dadka badan Afrika oo ah waddanka Masar waddanka saddexaad ee ugu dadka badan Afrika waxa weeyaan waddanka Masar magaca rasmiga ee loo yaqaan waddanka Masar waxa weeye Jamhuuriyadda Masar ee Carabta ama Jamhuuriyatul Masr al-Arabiyya Masar waa waddan ka wada tirsan labada qaaradood ee Afrika iyo Aasiya Masar sidaan hore u soo sheegnay waa waddan ka mid ah wadannada Afrika waxaana ku yaala waqooyiga Afrika caasimadda waddankani waa Qaahira Masar waxay xuduud la leedahay wadamada kale ah Suudaan Liibiya Falastiin iyo Israa'iil dhinaca bariga waxay kala leedahay badda cas Masar waa waddan taariikh ku leh Afrika isla markaana ay soo mareen boqorro iyo dawlado kala dambeeyay sida faraacinadii Masar waxa ay ku caan tahay dhismayaasha sida cajiibka loo sameeyay ee inta badan loo tago dalxiiska ee loo yaqaano ahraam kuwaas oo ay dhiseen boqorradii faraaciyiinta ee hore dalka dadkani waxa uu jir ahaan gaadhay 102 milyan oo qof taasi oo ah qiyaastii la sameeyay 2020 tirada dadka muslimiinta ee waddanka ku nool waxa 5% tirada guud ee waddanka Masar taasi oo micnaheedu tahay in 5% ay yihiin dadka aan islaamhayn 5% waxa uu noqon doonaa taasi oo micnaheedu tahay dalka ugu tirada badan ee dadyowga Carabta guud ahaan waddanka Masar caalamka marka la eego waxa uu yahay waddanka 5 ugu dadka badan ee adduunka Masar waxa soo maray madaxweynayaal tiro yar marka la eego wadannada kale oo 1956 waxa haystay Maxamed Nagiib halka 1956 ilaa 1970 waxa haystay madaxweynaha inta badan ay Soomaalida xilligaas sida fiican u yaqaaneen ee loo yaqaan Jamaal Cabdi Naasir oo ah nin taariikh badan ku leh waddanka Masar loogana yaqaano xilliyay 1970 waxa xilka la wareegay Anwar Saadaat isna waxa uu hayay 1970 ilaa 1981 ilaa 2011 madaxweynihii ku baxay gacantii kuwii Carabta ama kacdoonadii ka bilaabmay 2011 wadannada Carabta inta badan ee loo yaqaanay Xusni Mubaarak dabadeed waxa yimid madaxweynaha sida xorta ah loo doortay marka loo barbardhigo madaxweynayaashii hore aan soo sheegnay waa madaxweyne looga tixgeliyo waddanka Masar iyo wadannada muslimiinta dhamaantood xilli qaran maadaama uu ahaa madaxweynaha inteera uu joogay laga dareemay dhul kasta oo islaam doogo madaxweynaha sheegna waxa uu noqon doonaa Maxamed Mursi sidaan hore u sheegnay waa liyay ku suntan taariikhda muslimiinta khudbadii uu jeediyay waxa ka mid ahaa hadilina libaaxyada dalkeena si ayna idin cunin ayda cadawin لا تقتلوا أسود بلادكم فتأكلكم كلاب أعدائكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد balse taasi isaga ayaa ku dhacdo waa la dilay Maxamed Mursi waxa uu xilka la wareegay 2011 waxaana uu hayay ilaa 2013 kadib inqilaab kula wareegay oo uu ka soo shaqeeyay waddanka Mareykanku iyo madaxweynaha halka hadda taagan ama madaxweynaha ku sheegay hadda taagan ee Cabdi Fataax Azizi qorshaha lagu ridayay Maxamed Mursi waxa aktar ka ahaa ama si fiican u soo abaabulay waddanka Mareykanka kaasi oo dhibsaday in Israa'iil uu la jaar yahay madaxweyne islaama isla markaana kana aan qaadanayn amarada waddanka Mareykanka Maxamed Mursi waxa uu sanadkii hore ku dhintay gudaha xabsi ku yaala magaalada Qaahira kadib muddo dheer oo ku xidhnaa xabsi ku yaala waddanka Masar dhaqaalaha ugu badan Masar waxa ay ka heshaa beeraha soo saaritaanka saliidda iyo dalxiiska Masar waxa sidoo kale ay ku caan tahay ciyaaraha maadaama ay ka soo baxeen labada Maxamed وثلاثي الهجوم محمد صالح iyo Maxamed Abu Tariika Maxamed Saalax oo ah ciyaartooy waddanka Masar ka soo jeeday dhaash
ahaan isla markaana u ciyaara Liverpool oo ah laf dhabarta ay ku dhaqaaqdo ninka ay ka soo wada jeedaan Afrika ee Sadio Mane. Masar sidoo kale waxay lahayd Maxamed Abu Tariika oo isna ahaa ciyaartoy weyn oo taariikhdii ku saabsaneed waddanka Masar ka imaantay naga eegtahay